Ubad qadiimi ah oo ku yaal aag aamus ah oo ruusha. Waxaa laga qoday dhagax. Dhammaan faahfaahinta waa soo jeedin iyo wejiyad. Waxaa lagu sameeyey heer wanaagsan. Waxaa cad in farsamayaqaan uu yaqaanay sida loo shaqeeyo dhagax oo uu isku dayay inuu ka dhigo mid siman. Wuxuu ilaaliyey isu dheelitirnaan iyo isku dhafka. Laakiin qoraallada. Sida inay markii dambe la qoday si qallooxan oo qallooxan. Xarfaha waa aan sinnayn. Xariiqyada waa qallooxan yihiin. Meelaha u dhaxeeya xarfo iyo xariiqyo waa aan isku mid ahayn. Waxay u muuqataa in qof qaato qubado qadiimi ah oo tayo leh oo dib loo isticmaalo. Waxay qoday qoraalka si qallooxan sida ugu fiican ee ay awoodeen. Taariikhda dhimashada waa atwatadmeya wa mitannatahamba. Dhammaadkii qarnigii noqtatahaad. Waxaa muuqata in waqtigaas ruushku ay jireen tiro badan oo qubado qadiimi ah oo dadka deggan ay dib u isticmaali jireen.